ninkii dooliga jawaanka ku sitay waa sheeko lagu cabiri karo xaaladda aan haatan ku jirno. Beri baa waxaa gaari amaba baabuur isla soo raacay nin oday ah oo beeraley ah iyo nin kale oo aqoon-yahan ah oo Soomaali wada ah. Ninka beeraleyda ah waxa uu wataa jawaan afka ka xiran oo u yaala lugihiisa hoostooda. Ninka beeraleyda ahi waxa uu ruuxaya oo isku qasaya waxa jawaanka ku jira 15 daqiiqaba 2 ama 3 jeer kadib booskii u yaalay ayuu ku celinaya. Ninkii aqoon-yahanka ahaa ayaa la yaabay waxa uu sameynaya ninkan beeraleyda ahi waxa uuna weydiiyey waxa jawaanka ugu jira. Ninkii beeraleyda ahaa waxa uu ku jawaabay, jawaanka waxa iigu jira jiirar amaba dooliyaal, waxaana u wadaa xarun cilmi baaris lagu sameeyo oo waa iga gataan amaba iga iibsadaan. Aqoon-yahankii ayaa weydiiyey mar labaad su'aal ahayd, maxaad markaad wax yar joogtaba aad u ruuxaysaa jawaanka? Wuxuu ugu jawaabay odaygii, haddii aanan ruuxin oo aanan isku dhaxqasin waxa ay dareemayaan xasilooni iyo deganaan, kadibna waxa ay ku mashquulayaan inay jawaanka dalooliyaan si ay uga fakadaan amaba ay uga baxsadaan. Laakiin haddaan ruuxo waxa ay dareemayaan qalqal iyo inaan meesha xasilooni ka jirin oo waa ay isnabayaan, iyaga ayaana isku mashquulaya kamana baxayaan jawaanka. Dulucda sheekada haddaad si fiican ugu fiirsato sheekadan waxa kuu soo baxaysa sida dalkeenna iyo dadkeennaba markii ay deganaan yar dareemaan loo ruuxaya jawaankii afka ka xirnaa ee aynu ku jirnay, oo la isugu kaayadirayo amaba la isugu keen mashquulinayo si aynan marnaba u dareemin xasilooni aan uga fikiri karno sidii aan dhibaatada uga bixi lahayn. Soomaaliyay wax fahma, cadowgaynu waa nagu maqan yahay, annaguna waan isku maqannahay, waana kala maqan